Ningependa kwanza kumkaribisha pia mkurugenzi mkuu wa jimbo hili au wa markazi yetu hii, Director Mheshimiwa mwalimu wetu, mzazi wetu, mlezi wetu, Mwalimu Abdurrahman Umar Ibrahim. Nimeamua niataje majina yake matatu ili taarifu iwe wazi zaidi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. Was-salatu was-salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Distinguished guests, teachers, parents, our beloved students, all protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace, mercy and blessings be upon all of you. It is with great joy to celebrate yet another successful academic year and the graduation of our students. It is my great pleasure also to thank and welcome our chief guest for today. Thank you very much for coming. And also to our marvelous parents and guardians, of course, for entrusting us with the care and education of their children. We don't take that for granted, and we are honored to have played a part in their development and growth. Let me talk about the history of Al-Adala Academy and Junior School very briefly, because I cannot summarize the milestone we have reached as a school. We started Al-Adala Academy and Junior School in the mid of 2023 with a population of less than 100 learners. Most of the learners we have received were directly from home, and we had to start from zero, helping them to read and write. By the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we have recorded some outstanding achievements within our short span of existence in the education sector. Our school population kept rising due to the quality of education shown by our able teaching staff. We have done our first national KIPSI assessment last year, where our candidates performed very excellently. This year, we have also had another group of candidates who sat for their national assessment last month, and we ask the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to grant them success. We are glad to have a junior school with all the facilities as by the Ministry of Education. And inshallah ta'ala, with a clear vision and shared purpose, we shall achieve all the goals that we have set. Dhammaan waalidiinta, marti sharafta, ardayda, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ugu horeyn, awalan wa qabla kulli shay'in, waxaa mahad iskale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu kulmiyey goobtan barakaysan, inagoo weynaynayno hadalkiisa iyo kalaamkiisa. waxaan Rabbi subxaanahu wa ta'ala weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa in qof kasta oo saaka tallaabo u soo qaaday siduu u weyneeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu daro. waxaan kaloon u mahad celinayaa marti sharafta qiimaha badan oo ugu horeeyo alwaalid. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo marti sharafta dhammaan fi miisaan xasanaadkum ay kugu daro. en maanta oo taariikhdu islaamku tahay 22 Jamaadul Uula oo ku aadan taariikh 13 bisha November 2025, waxaan halkan run ahaantii u fadhinaa xaflad aad iyo aad u qiimo badan. waxay noo qalan jibinayso Ilaahay fadligii iyo waafajintii arday cadadkoodu gaarayo ilaa 130 arday. ardaydaas oo ka kala qalin jibiyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay Al-Adala.
جروب waxay ka qalin jibiyeen qaybta farbarka ama qiraa'ada wal kitaaba جروب kalena waxay ka qalin jibiyeen qaybta quraanka جروب ka saddexaadna waxay ka qalin jibiyeen qaybta PP2 ama preschool waxayna u socdaan grade 1 ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa dhammaan ardaydaas in cilmigaas ay barteen uu ku anfaco adduun iyo aakhiraba walidiinay haddaan wax yar idinkaga taabto hadalka kuma dheeraanayo alcadaalo iyo waxay ka kooban tahay alcadaalo waa saddex qayb qaybta koowaad waa qaybta kindergarten ama qaybta xanaanada carruurta yarta farbarka ah qaybta labaadna waa qaybta markaska weyn ee taqaanaan ee taxfiidka quraanka ah qaybta saddexaadna waa qaybta alcadaala academy and junior school oo 2 sano ka hor asaasnay run ahaantii iskuulka faa'iido aan ku qabno iyo waxyaalihii uu nagu soo ziyaadiyay kama gaaro waqtiga awgii waxa ugu weyn ee iskuulka uu nagu soo biiriyay waxa kamid ah in ardaydii iskuulayda ahayd ee aan u helnay waqti fara badan quraankan uga faa'iideyno waayo ardayga reer cadaalo subax 12ka asagoo uniformka iskuulka wato wuxuu ku soo hormaraa madrasada hadduu farbar yahay iyo hadduu quraan yahayba markuu casharadiisa bogo ayaan iskuulku ka xaynaa haddana galabkii markuu soo dhamaysto programkii iskuulka waxaan ku soo celinaa madrasada sidoo muraajacooyinkii iyo casharkii bari diyaaristeedii uga howlgalo ilaahi subhanahu wa ta'ala waafajintiisa kadib in cadadka inta leeg maanta ay qalin jibiyaan taasa u sabab ah waxaan balan qaadaynaa insha Allah ta'ala aniga teamkayga inaan si laba jibaarno juhdiga iyo dadaalkaas haddii aan ka helno wada shaqayn iyo isla socod waalidiinta waalidka mar walba la xiriira xafiiska macallimiinta la socdo uu ka hormarsan yahay mar walba waalidka aan xafiisyada imaanin ama aan laga warhaynin waalidiinta qaar baan haday irid isku arkaynay qaarkood weydiinay macal cunugayga kuma jirin qalin jibinta markaas waxay noqotay inaan u sharaxo cunuga meeshu marayo iyo casharkii iyo inta u dhiman markaas kadib aan halkan keenay taa waxay ku cadeynaysaa waalid sanadkan oo dhan maqnaa haddeer taanay macluumaadkii dhan iga qaato cunuga laakiin waalidkan isla soconay wuu og yahay ardaygiisa waa ku jira ay kuma jiro marka waalidiin ay khayr farba Allah idin siiyo waan ogahay biil baa la raadiyaa Nairobi waa iska mushkilo badan tahay laakiin ubadkii hadda sheen waqti loo helo macallimiintii ha laga warhayo waa bilaadan malaa'ig maahan waxba khaldami karo oo maamulka idaarada hala soo xiriiro wixii khaldan insha Allah ta'ala saasaan isku ognahay haday saas dhacdo wax badan baan insha Allah ta'ala wada qabsanaynaa waqtiga awgiis kuma dheeraanayo xafladii way noo bilow waxaan u soo hormaray inaan u dambeeyay ahayd waxaan isir hadirtaana fresh leeyahay oo lagu wada maqli karaa saasaan waqtiga uga faa'iideystay waalidiinta iyo ardayda dhammaan insha Allah ta'ala macallimiinta iyo teamka fanaanadaha yeelooga wato waa ardaydeedii horo dhamaantood garbe wada leeyihiin laakiin waa reer cadaalo kulligood way nala shaqeynayaan maanta bifadlikum hadday wax ku sheegaan ama kacay ku dhahaan ama meeshan ka duruq warkooda hala yeelo waa ardayda kamida xafladan waa xafladan ku weyneenayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa iyo kitaabkiisa qof kasto niyeystay inuu ajar ka helan ajar buu kala tagayaa xafladina waa noo furan tahay insha Allah ta'ala hala dhageysto bandhigyo iyo entertainment ba halkan ku sameeynayna waxyaabaha madrasada iyo iskuulka lagu dhigo qaybo kamid aan soo bandhiganaa kulli kama gaarno laakiin qaybo dhanka maadiga dhanka diiniga wax yar baan ka soo bandhiganaa insha Allah ta'ala waqtigana waan save gareynaynaa wabillahi tawfiiq waan ku maasantihiin imaataanka imaateen بميزان حسناتكم الله يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.